مشرح golaha wakiilada gobolka Sanaa uga sharaxan xisbiga mucaaradka Waddani Injineer Saleebaan Diiriye Barre ayaa degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaa ku soo bandhigay xuduudda taageero ee uu ku leeyahay shacabweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi Garadaga waxayna xafiisyada kala duwan ee xisbigaasi ku leeyahay gudaha degmadaasi soo buux dhaafiyay boqolaal kamida taageerayaasha musharax Injineer Saleebaan Diiriye Barre iyo musharaxiinta golaha deegaanka ee xisbiga Waddani waxaana goobo fagaara kala hadlay shacabweynaha kala duwan ee reer Garadag ee taageerada u ah musharax Injineer Saleebaan Diiriye Barre iyo musharaxiintiisa golaha deegaanka qaar kamida taageerayaasha mayalka adaga ee xisbiga Waddani musharaxiinta golaha deegaanka degmada Garadag odayaal iyo waxgarada dhamaantood cod dheer ku sheegay inay taageersan yihiin sidoo kalena ay codka siinayaan musharax Injineer Saleebaan Diiriye Barre iyo sagaalka musharax ee golaha deegaanka Garadag uga sharaxan isla xisbigaasi Waddani حسبك رجال شعبك يا وطني إذا حديمان سليمان ديري قرر مالن دوين حلقة كهدلي سدح نويان وانا نكيب سنة مبتو دي بان دورنا انت نكيب ستين مبتو دي بان دورنا انت نكيب ستين سدح لانين مبتو بان دورنا بعبران ما مثلان عد كلمة مثلان عد ألا لعد مثلان وحلو أنا عايز أدخل عمل كماتان بعبران يعدك كلامه وحن فريق قدرية عندك لبض إننا نشرح لبض ودني بكشرح عني هدي رأيك إنه مش كوب يصدق كده وحينو بلنا إنه يغفل لمكان حسمان تودي أرجعيسو غفل وكان كاجا يلاشو oo diyaar garayso halkii aad barigii koogeeda dhigtay qaar baan dadka dib u eegina maanta sidaan la soo dhaxawaaya kaalalkii waa la kala xadaya waa la kala iibsanaya takoogaada ku dadaan way xooyo qof walba kaarkaaga inaad haysato udiso taasi waa qalab qofta guushi way muuqatay hadday muuqatayna laba qodob uu baa loo baahan yahay maanta in guusha lagu hanto qodobka koowaad in nabadgelyada la ilaaliyo oo aan la iskaga ciyaarin haddaad ninaan midhaba haysan la dagaalanto adiga midhaha way daadanayaan waxaan leeyahay midhihii lisaanay u daadan nabadgelyada iyo dulqaadka ilaaliya intaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaan leeyahay astaamaha waa garanaysaan xildhibaanada sare iyo kuwa hooseba xildhibaanada sare sida Saleebaan Diiriye daladu khaldami mayso waa ahay abtigayna waa maalqabkii kaana idinka khaldami mayso dee waxaynu soranaynaa horeynu isku nidhi dardaaran baanu maanta sinaa dardaarankaanu sinaa waxa weeye qof walowba waanu ognahay inaad noo codaynaysaan inaad codkanna wada siinaysaan oo aad xisbiga Waddani iyo xildhibaanada xisbiga Waddani ka sharxan aad siinaysaan waanu ognahay laakiin yaanu inaga khaldamin codkaagii yaanu kaa khaldamin oo xabad cod oo aad khaladay ha igu ridin aniga ee xabadda coda ilaali maxaad iigu ilaalinaysaa daba waxaad iigu ilaalinaysaa dadkeennu waxba ma taqaanid way ka xanaaqaan dadkeennu waxba ma taqaanid way ka xanaaqaan degdegna wuu jiraa oo badan yahay qof ownaha degdegin gudoomiyaa lagu sameeyey ku-xigeennaha jira intaas waxay ka shaqaynayaan goobta waa gabagabadii waxaynu doonaynaa inaynu isfarno sidii wax loo calaamadin lahaa halkan waxaa ka sharaxan laba baarlamanka inooga sharaxan oo Saleebaan Diiriye iyo Siciid Jaamacade oo labadooda calaamadood kala yihiin dalada iyo awrka qofku markuu calaamadinayo qofkii aan calaamadin karayn wuxuu calaamadinayaa wuxuu oranayaa hebel inaga marka hore calaamadeenu waxay ka bilaabantaa 300 iyo 1 ilaa 309 weeye qofku calaamadda uu sito wuxuu oranayaa golaha deegaanka lambarkaas aad calaamadaysaa 300 gabagabadii musharax Injineer Saleebaan Diiriye Barre oo madasha ka hadlay ayaa ugu horeyn u mahadnaqay shacabweynaha kala duwan ee reer Garadag ee sida mug iyo miisaan kale u taageersana sidoo kalena codsi dheer u diray bulshada kala duwan ee reer Garadag inay maalinta doorashada ee 31 May ee maalmaha kooban inaga xigaan codkooda ay ku hubsadaan astaanta codayntiisa oo hadalada waxaan isleeyahay waa maalintii ugu dambeysay ololaha doorashada ee axsaabta qaranka
وعسى تشارلز بانو هرناي إن ضدك دقوقه وح قارسينه ما أنت وقت بيسي تشارلز أي نقطة هاي ما هاد إله يا إسكالم وجد كوجو بدن يقدرنا كوجو بدن هو بهك يا الله دردارن ما أنت حاول كلا يروح كلا وفر بدن مجران دردارن كانوا يدفرين أنا وحوينا كبر إنه وهو هذا الكاغده وسمت كل باليده أنا ما أنت حقيقي شنو وأن تلبنوا بعلامتها أي تدخل كلامين ما أنت هتقولها أود لي ولا هذا كويس وتكمل يعني صدق عشان يرجع حكته لما عشان يعني حاجة ما أنت وأتكلم لا تكيس صدق وأتكلم لا ما تبشوا لحية طبعا سنوات كتب إلى دور شو يسكت كانت تلك كذا على وحي مهم تهاي قرنك ودم وحي مهم تهاي حسب هذا قرنك سيدا وتاجنتين ساعة بعدك إله يا بالك نبيه وحن كرتين يا إلهي إنه عور كل سنة تكسيه أنا قال نقدر يكون هنا بالكذا ولا شيء ديانك يكون في الله وحن كرتين يا وان مرة كلية إلى الوقتان يروح عليه وحايدن كلية بهين أحمد قنبري تلفزيون كابل شو Garadag